waa maxay indie filter bacdan yar oo ku jira laakiin baakadkii aan ka bixishay bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa sallam salaam rasuul muuqaalkeeda soo gaaro adiga UK halkaan naga daawanaysan waa King UK official yoom nismo insha Allah muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa maxay indie filter so maalmaha qaar waxaan ka hadalnaa waxyaalo faa'iidooyin ku dadin leh insha Allah dadka kaamiramanada qaasatan editorka qaasatan insha Allah muuqaaladaas ay ka hadli doona dabcan waxaan booking gareystay ama aan dalbaday indie filter oo aan ka dalbaday qolyo wax ka iibiyo elektroonigada oo ku yaalaan magaalada aan joogo townka la dhahaa townkay ku yaalaan waa qolooyin aad u fiican waay waxay iibiyaan indie filterada kaamirooyinka lenseska lens hoodka kaamirooyinka naftirkooda oo gimbaladooda mikrofoonada boy wax walba iibiyaan marka soo insha Allah muuqaalkeeni waxaan ku qaadan doonaa waa maxay indie filter waxaan dalbaday indie filter hadii aad taqaanid insha Allah so bacdan yar oo ku jira laakiin baakadkii aan ka bixishay baakadkii aan ka bixiyay indie filterada way badan yihiin noocyadaan ay u kala baxaan inta ugu badan muxuuna taraa hadii taa muuqaalka uga hadli doona insha Allah iswaalin halkaan waa bacdan waxa ku jiro indie filterka iyo waa baashan inta ugu badan dadka waxay dhahaan tiish amal waa tiishashkan oo hadii aad aragto ookiyaalada lagu dhax keeno raayadaha ookiyaalada markii tiish wax lagu tirtiraa lagu keenaa kaas amal uu eg yahay insha Allah asantaa soo bixin doona waa kan waa laba xabo waay mid madow waay midkan waay marka soo kuwan insha Allah waxa lagu tiraa indie filterka wuxuu ku jiraa boxkan yar indie filterka boxkan yar oo ku jira muxuu taraa okay intaan asi test ahaantiisi iyo browadiisi wuxuu taraa iyo waxyaalaha qaar aan u gudbin waxa u gudbina insha Allah muxuu taraa indie filterka wuxuu taraa tusaale muuqaalada markaa ku duubay sidoo kale meel iftiin zaid ah wuxuu ka caawinayaa iftiinkaas inuu ku soo saaro wax qurux badan waa muraayad u dhaxayda zoomka aan dhahay lenseska markii ay qoraxda ku dhici lahayd ka difaacaysa indie filterka inta ugu badanna waxa ka hadlo dadka youtuberada cameramanada professionalka sida garasho kale waxa kala ka hadlo Allah musta'an wiil ay yiraahdo Moliban oo kamid aha duusti filimkii haboon kamid aha waxa ku mid yahay indie filterada loo isticmaalo indie filteradaas way weyn yihiin sababta zoom weyn lagu xiriiro laakiin kan uu yar yahay markaan dalbanay sababta kaamirada zoomka ku xiran 49mm waa 49mm like lens MD filter loo isticmaali karo waa kan marka insha Allah waxtarkiisa aad u fiican yahay meel qorax isku duwaysa ama iftiin zaid ah wajiga cadaan zaid oo ku furmaayo kasoo inaad color saarto videoga aad qurxiso Adobe Premiere Pro aad geyso color gareyn wax dhan aad u tiggarayso waxa ka horeeyo in indie filter isticmaasho indie filterka wuxuu ka caawinaa iftiinka dhan inuu ka difaaco marka waa kan insha Allah waa furi doona indie filterka waxaan isla arki doonaa siduu u eg yahay dad badan aan garanayna jiro inta ugu badan sawirkiisa halkaan idin soo saaraya wixii inta ka horeeyana isla arki doona insha Allah waa kan waa mid yar oo zoomka afkiisa lagu xiro waa arkaysan hadii aad maqasho hadda kadib waa maxay indie filter waa midkan waxyaaluhu tarana waan ka soo hadalnay insha Allah soo waxaan hadda sameyn doonaa promo muuqaal ah oo kaamirada aad ka arkaysaan ma ku xiraaya kadib waxa idin leeyahay maxaa la asiga before after insha Allah maxaa sugaysiin kaamiradan ku xiraaya hadda let's go way kan hadda muuqaalkan hadda wuxuu ku doobmayaa indie filterna waa sharaxadiisi waa idin soo sharaxay asigoo dhameystiran kaliya waxa dhinay test yar oo ka qaadayo sidoo noqonayo markii kaamirada la furo armal ii jeeda waxa isticmaalay waa indie filter insha Allah shadow speedkiina aad u fiican yahay sababtoo gacanteeda markaas aan leeyahay waa ujeedin wax ma soo galaayo jijiid ma shutter speedkiga aad u badan yahay marka soo muuqaalkan waa ka intaas idin ku sheegaya indie filterkan muuqaalka aad u muhiim ugu yahay marka soo waa ka insha Allah muuqaalka soo daawateen indie filter before and after insha Allah waxyaaluhu tara aad u fiican yahay ani hadda sababta aan isbedel badan loogu dareemaynin waxay tahay meel banaan oo qorax ma joogi sababta taas waay
leerar iga waaweyn oo zaad u waaweyn isticmaalay sababta saas waay marka soo insha Allah waxyaalo badan waan ka soo hadli doonaa soo dalbada muuqaalkan halkaas aan ku arkeen doonaa inta ka kulmeen muuqaalkan waxa ay leeyahay saynis video mukalaati awliyaa ilaa kan ilman abahooda